محاك النول وحا لينا إنا وذا قرصنا إن نبوين وقاري ولا لا إنه غويقة هذا الشلا أنت حر ماذا نجهر قاتين أي السجين وعلنك سوق قادين ويمادين أي هذين ورياضة سوامالة أتينا أن هي شروط مو وذا قرن كان وذا لسنه أنا وحنا من سنة هاي مكاس رجاس ولا لهنا يعني أبال وين كلين بدنا ماذا أي حرية وحير دعينا أو أي كعوذان واحد ضوء وليه هنا هاينو خلت كذا وادعي يا سمي هبة لا سمي مرة بينك هالله لكن وحواي ولا لك عدو تبشقبه واجبك وحواي تبشد أنا بحسه إن مركا هدانا هاي كوفرتي هدانا إن كجراونه وحوضنا ميسك إسكسرنا وشل ولا لهن شروط أنا وحكينا أنا وحين وكوا سلكاس ديالين أنا وحي إلى تعداو أيضا إن لقى فكره لقى وضع الشقايو أنا يجا بدنا وحين نوجر تامدنمو لكن مدنما ده عصينا هاتو مدنما عدالة كل سنة لسكو على الفرنية هاي تباشري هورنا للدمية كان جوابي سباهي ذا labada dhinac ba inay ahaato waa laga maarmaan marka arintaas ayadana waxaan rabaa inaan iraahdo mubaadaradeeda iyo kor u qaadideeda dhinacana ka timaado walaaleen waxaan rajaynaynaa ayaga laftigooda inaysan meesha ay taagan yihiin iska taagnaane waxa hadda waqooyi ka dhacay iyo wax ka badan buu dhaceen waana dhacaan adduunka tala kuma dhicin laakiin waa soo mareen dadkana inta joogtaa tala u baahan iyo dhaqan u baahan marka in laga fikiro waxa Soomaali u wada wanaagsan dhamaanteeda waxaan isleeyahay ayaduna waa xigmada keenaysa maantana adduunkii laba isla jirta iska dhaaf kuwa aan isla jirina raba inay iskaashadaan oo yani kuwa cadawha wada hadlaaya maanta oo cadow isku ahaya wada hadlaaya laba dal oo walaalo ah ama dad walaalo ah oo laba dhinac dalka ka deganay oo wax soo dhex maraan inay wada hadli waayaan ama ay wada hadalka wax ka keeni waayaan waxaan isleeyahay ayada laftigeeda waxay muujinaysaa bisalkeena wax ka dhiman yihiin mar kale dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay xaaladda siyaasadeed dalka waxa uu sheegay inaysan muuqan markan bisal siyaasadeed iyo isku tanaasul wuxuuna sheegay dhibaatada dalka ka jirta ay qayb ka tahay qof raba inuu la shaqeeyo ma jiro qof la arkaba wuxuu rabaa inuu asaga mataqaana tiisa kale ay socoto qaran nasaas kuma dhismaayo qalanku wuxuu ku dhismaayaa amal jamaaci wuxuu ku dhismaayaa tanaasul meesha marka ay maanaysid waxa ka soo tagtay gurigaagi sarartaada ka soo tagtay fadhigaaga fiicnaa ka soo tagtay xuquuqa ka tanaasushay arintaas maxaad u sameynaysaa xaflad kale inaad ka qayb gasho marka aad rabtid qaran inaad dhistid waa inaad intaas ka badan ka tanaasushaa haddaadan samay karin waxba ma gashid waxba soo ma kordhi kartid waqti aad dhumanaysa ciladu marka meelaha naga haysato waxa kamid ah sabar la'aan dulqaad la'aan